Sheekadu waxay ku saabsan tahay nin taajir ah oo lahaa 4 wiil. Ninkani wuxuu lahaa hanti aad u badan, dhul ballaaran, iyo xoolo badan oo uu dhaqdo. Wuxuu aad u jeclaa 4tiisa wiil, laakiin wuxuu ka baqayay in markuu dhinto ay iskhilaafaan wiilashiisa, iyagoo kala qaybsanaya hantida. Ninkii markuu dareemay inuu sii gaboobayo oo xanuunsaday, ayuu qorshe sameeyay. Wuxuu yeeray 4tiisa wiil, wuxuuna u sheegay inuu doonayo inay si wadajir ah u noolaadaan oo isjeclaadaan, sababtoo ah afgaradku waa barako. Wuxuu amray in la keeno 4 weel oo wax lagu kaydiyo, wuxuuna wiilasha u sheegay, inkastoon idin jeclahay dhammaantiinaba, haddana sariirtayda hoosteeda waxaan idinkugu aasay 1 weel midkiinba. Markaan dhinto, qof walba ha doorto weelka uu rabo. Kahor intuusan dhiman, ayuu weelashaas wax ka buuxiyey, kadibna mid walba sariirta hoosteeda ayuu ku aasay. Markuu dareemay in noloshiisu dhammaanayso, ayuu mar kale wiilasha u sheegay, carruurtayda qaaliga ahow, hantida waxay keentaa dagaal badan. Waxaan hantidaydii u qaybinayaa 4 qaybood, midkiinba wuxuu heli doonaa weel u gaar ah. Dhammaantiin waxaad tihiin indhahayga iyo qalbigayga. Waxaan rabaa in midkiinba helo qaybtiisa ka hor intaanan dhiman. Wiilashii waxay madaxa hoos u dhigeen si xushmad leh. Aabbaha wuxuu ugu horrayn yidhi wiilka ugu yar, dooro geeska sariirta aad rabto. Kadibna intii kalena si isku mid ah ay u doorteen gees kasta oo sariirta ah. Waxay dhammaantood fadhiisteen agtiisa si ay uga faa'iidaystaan jacaylka iyo ereyadiisa ugu dambeeya. Kadib markii aabbaha dhintay, waxay sameeyeen dhammaan tacsidii iyo ducooyinkii. Xitaa maalintii 4tanaad kadib dhimashadiisii, waxay ahaayeen kuwo sadaqo u bixinaya. Lacag way haysteen, sidaa darteed sadaqo iyo khayr ayay samayn jireen. Maalin maalmaha ka mid ah, 4tii wiil ayaa go'aansaday in weelashii sariirta hoosteeda ku duugnaayeen ay kala soo baxaan, si ay u arkaan aabbahood wuxuu mid kasta siiyey. Markay soo saareen, mid ka mid ah weelashii waxaa ka buuxay dheeman iyo jawharad qaali ah. Weelka labaad waxaa ka buuxay dahab, laakiin weelka saddexaad waxaa ka buuxay caro keliya. Weelka afraadna waxaa ka buuxay lafo keliya. Labadii wiil ee helay dahabka iyo dheemanka aad bay u farxeen, laakiin labadii kale ee mid helay caro iyo mid helay lafo aad bay u murugsan yihiin. Waxayna bilaabeen inay cabasho culus ka muujiyaan. Waxay yiraahdeen, aabbaheena wuxuu sheegay in dhammaanteena sinaan ku heli doono hanti. Maxaa keenay kala duwanaanshahan? Wiilashii, inkastoo labo keliya ay heleen dahab iyo dheeman, haddana dhammaantood waxay aaminsanaayeen in aabbahood uu ahaa nin cadaalad jecel oo qalbi fiican leh. Sidaas darteed, halka isku qabsan lahaayeen, waxay go'aansadeen in ay raadiyaan qof caqli badan oo fasiri kara micnaha labadii weel aan waxba ku jirin, mid ka buuxo caro iyo mid ka buuxay lafo. Markay waayeen qof arrinta fahamsan, waxay wada xasuusteen in aabbahood uu ka haystay maamuus weyn xagga boqorka. Markaa waxay isku raaceen inay tagaan qasriga boqorka si ay uga helaan jawaab. Xitaa labadii helay maalka iyo dheemanka waxay yiraahdeen, boqorku waa nin aad u xikmad badan. Ma dhici karto in labadeena walaal ay hanti la'aan noqdaan. Waxaa hubaal ah intani ay tahay xikmad uu aabbe inooga tagay. Waxay kaloo yiraahdeen, aabbe wuxuu noo oggolaaday inaan dooranno weelka aan rabno. Markaa tani waa nasiibkeen, laakiin waa in la fahmaa sababta ay u kala duwan yihiin. Markaasay 4tooda isku diyaariyeen una safreen qasriga boqorka. Markay jidka marayeen oo ay u soo dhowaadeen qasriga, waxay arkeen wiil boqor oo faras saaran, kuna sii jeeda meel uu ku ugaarsado. Wiilkii weynaa ayaa si xushmad leh u weydiiyey, ina boqor oo boqorka ma joogaa? Wiilka boqorka si xanaaqsan oo aan xushmad lahayn ayuu ugu jawaabay, boqorka wuxuu ku jiraa gudaha qasriga, laakiin maskaxdiisa waxbaa ka qaldan. Markaas ayuu wiilka boqorka sii socday isagoon faahfaahin bixin. Markaasay maqleen in boqorku waalan yahay, sida uu wiilkiisa sheegay. Wiilashii aad bay ula yaabeen hadalkaas. Sidee qof alle ka cabsi badnaa, qof naxariis badan oo cadaaladda jecel, maskaxdiisu u xumaan kartaa bilaa sabab? Markaasay go'aansadeen inay si toos ah u tagaan qasriga, bal inay arkaan siday wax u jiraan. Markay gudaha u galeen beerta qasriga, waxay la kulmeen gabadhii boqorka oo joogtay beerta iyadoo ay la joogeen haweenkii qasriga. Markay wax ka weydiiyeen boqorka, waxay sheegtay in boqorku uu weli fadhiyo qasrigiisa, laakiin uu indho yahay. Arrintaasi waxay ku sii kordhisay shaki iyo murugo, maxaa yeelay wiilka boqorka wuxuu yidhi wuu waalan yahay, gabadhiina waxay tiri wuu indho yahay. Waxay xasuusteen in sannado ka hor ay iyaga iyo aabbahood ka soo qayb galeen xaflad weyn oo qasriga lagu qabtay, isla markaan boqoradda ay iyaga garanayso. Markaa waxay si kalsooni leh ula kulmeen boqoradda,
marka u sheegeen wixii ay maqleen. Boqoradu waxay u sheegtay arrin la yaab leh. Waxay tiri, boqorku wuxuu dhintay muddo 12 bilood ah ka hor. Arrintaas waxay yaab iyo murugo ku reebtay afarta wiil. Waxay bilaabeen inay dib u laabtaan iyagoo niyad jabsan. Laakiin boqorada ayaa joojisay, waxayna tiri, haa, waad tagi kartaan oo waad la kulmi kartaan boqorka. Wuxuuna joogaa qasriga. Laakiin aniga ahaan, wuxuu leeyahay mid dhintay sannad ka hor. Markay qasriga gudaha u galeen, waxay galeen qol uu boqorku fadhiyo. Laakiin halkii ay ka filayeen dad badan iyo xaflad sare, waxay arkeen oo keliya boqorka oo la fadhiya wasiirkiisa, isaga oo la tashanaya. Boqorku markii buu u gartay afarta wiil, wuxuuna yidhi, kuwan waa wiilashii saaxiibkaygii qaaliga ahaa. Markii boqorku ogaaday in wiilashani yihiin carruurtii saaxiibkiisii hore ee maalqabeenka ahaa, wuxuu soo dhaweeyey si naxariis leh. Wuxuu gacantiisa ugu tilmaamay inay soo dhowaadaan. Markay hor yimaadeen, boqorku wuxuu sheegay wasiirkiisa wanaagga iyo sharafta aabbahood uu lahaa, wuxuuna ka tacsiyeeyey geeridiisa. Wuxuu si sharaf leh ugu fadhiistay kursiga ku xiga wasiirka. Markaas ayaa wiilkii weynaa codsaday in laga dhageysto sababta ay u yimaadeen. Boqorku si taxaddar leh ayuu u dhageystay sheekadooda, wuxuuna aamusay muddo yar isagoo ka fikiraya arrinta ay la yimaadeen. Wiilashii waxay sugayeen go'aankiisa iyagoo ogaa in boqorku yahay nin aqli badan oo la yaqaan taladiisa. Kadib, si lama filaan ah boqorku wuxuu yidhi, aabbihiina aad buu u fiicnaa. Labadii wiil ee helay carradii iyo lafaha ayaa wejigooda isbedelay oo niyad-jab bay muujiyeen. Waxay u maleeyeen in nasiibkoodu noqday ciid iyo lafo. Laakiin boqorku wuxuu sii watay hadalkiisa isagoo leh, midkii helay dheemanka iyo jawharadaha, taasi waxay ahayd nasiibkiisa. Midkii helay dahabka, taasi waxay ahayd calafkiisa. Laakiin kuwa helay carrada iyo lafaha ma ahan kuwo khasaaray. Wuu u sharxay oo wuxuu yidhi, carradu waxay astaan u tahay in wiilkaasi yahay milkiilaha dhammaan dhulalkii uu aabbahooda lahaa. Lafaha waxay astaan u yihiin in wiilkaasi uu leeyahay dhammaan xoolihii, geelii, faraskii, lo'dii, iyo idihii iyo dhammaan xoolihii kale ee waxtarka lahaa. Markii boqorku u sheegay wiilasha in labadii wiil ee helay carrada iyo lafaha aysan khasaarin, balse ay heleen wax qiimo badan leh, dhammaan afartii wiil way ku farxeen. Waxayna u mahadceliyeen boqorka iyagoo leh, Ilaahay ha ku siiyo cimri dheer. Anagu waxaanu nahay walaalo. Waxaan rajaynaynaa inaan isjeclaano oo isfahamno. Markay sii baxayeen, wiilkii weynaa wuxuu xasuustay hadalladii uu maqlay markay soo socdeen. Ay ka maqleen wiilka boqorka, gabadha boqorka iyo xaaska boqorka. Wiilka wuxuu yidhi boqorku wuu waalan yahay. Gabadhii boqorka waxay tiri boqorku wuu indho yahay. Xaaska boqorka waxay tiri boqorku dhinacayga wuu ka dhintay. Wiilkii weynaa ayaa markaas weydiiyey boqorka, haddaad ogolaatid, waxaan doonayaa inaan su'aalo kaa weydiiyo waxyaabo aan maqlay oo kugu saabsan. Boqorkii ayaa ku jawaabay, haa, wax kastood rabto ii sheeg. Wiilkii wuxuu sheegay boqorkii wixii ay maqleen. Midna wuxuu yidhi waad waalan tahay. Midna waxay tiri boqorku wuu indho yahay. Midna waxay tiri, markuu hadalka sii socday, boqorkii wuu qoslay wuxuuna isagu dhameeyey hadalkii isagoo leh, haa, boqorada dhinaceeda kama nooli. Kadibna wuxuu yidhi, ma rabtaan inaan idin sheego sababta ay sidaas u yiraahdeen. Afartii wiil waxay madax u foorariyeen si edeb leh. Markaas ayuu boqorku bilaabay sharxaadiisa. Wuxuu yidhi, wiilkayga hadda wuxuu noqonayaa 18 jir. Waxaan rabaa inuu waxbarashadiisa dhammeeyo oo yeesho tarbiyo fiican. Waxaa kaloo jirta in sannadaha dhow aan doonayo inaan u diyaariyo guur. Boqorkii ayaa sii waday hadalkiisii wuxuuna yidhi, haddaan helo qof ku habboon oo wiilkayga uu guursan karo, oo aan diyaariyo wax kasta oo loo baahan yahay, markaas ayaan xilka boqortooyada isagoo ku wareejin lahaa. Anigana inta nolosheeda iiga hadhay waxaan u noolaan lahaa sidii darwiish ama nin caalim ah oo ka fog adduunka. Laakiin wiilkaygu wuxuu rabaa in wax kasta si degdeg ah loo sameeyo. Wuxuu doonayaa in si dhaqsi ah loogu guuriyo, looguna wareejiyo taajkii iyo kursigii boqorka. Laakiin anigu weli diyaar uma ihi arrintaas, waan sababta uu iigu yeero qof waalan. Aniga arrinta wiilkayga aad baan uga walwalsanahay. Waa nin dhalinyaro ah, waxbarashadiisuna weli ma dhammaan. Waxaan raadinayaa qof wanaagsan oo u qalma inuu guursado. Gabadhayduna way jeceshahay, laakiin waxay jeceshahay in guurkeedu si dhaqsi ah loo dhammeeyo. Waxaa laga yaabaa inay dareemayso inaan kadib dhigayo. Markaa way murugaysan tahay. Maalin kasta way i aragtaa, balse waxba ima dhahdo oo ilama hadasho. Tani waa nasiibkayga. Boqorada waxay ii tarinaysaa inaan dhintay, sababtoo ah sanad ka hor waxaan labadeennaba ahayn kuwo waqti wada qaata, dalxiis taga,
si wadajir ah u cunteeya oo si fiican u sheekaysta ayagoo weliba faraxsan. Laakiin nasiib xumo, cadowga horumarka iyo wanaagga waddanka ma aysan rabin in dadka saboolka ahi xor noqdaan oo aanay u adeegin maalqabeeno mar dambe. Sida aad ogtihiin, waxaan siinay dadka beeraleyda ah dhul si ay uga madax bannaanaadaan maalqabeennada, si ay mulkiilayaal uga noqdaan dhulkooda. Maanta waxay beeraan dalagyo wanaagsan oo hodan ah, laakiin maalqabeennadii ayaa isku dayaya inay caburiyaan dadkaas. Cabsi iyo hanjabaad ayaynu isticmaalaan. Maalin kasta cabashooyin badan ayaan maqlaa. Dadkuna waxay ii yimaadaan iyagoo iga doonaya cadaalad. Boqorkii ayaa hadalkiisa ku sii daray, ilaa aan dadka dulman ka dulqaado dulmiga iyo cadaalad darrada, ma nasanayo. Waxaan joogaa halkan mar kasta si qof cabanaya ama sabool ah uusan uga tagin isagoo niyad jabsan. Runtii waxaa dhici karta in boqoradu dareento maqnaanshahayga, laakiin waa inay fahantaa in Ilaahay uusan i siin taajkan iyo kursiga boqortooyada saan ugu raaxaysto keliya, ee waa in aan dadka ugu adeegaa. Haddaan dadka kale farxad la dareemi karin, farxaddaydu wax micno ah ma lahan. Markuu boqorku hadalkaasi yiri, wuu aamusay. Afartii walaalo ahaa waxay si buuxda u fahmeen in boqorkoodu yahay nin qalbi wanaagsan, caaqil ah oo cadaaladda jecel. Markaas bay si edeb leh u weydiisteen in loo oggolaado inay tagaan. Boqorkii intuu u duceeyey buu ku yiri, nasiixadayda ha ilaabina, hal qoys ahaada, wanaagna ku wada noolaada. Ilaahay ha idin barakeeyo, hana idinku abaalmariyo wanaaggiina. Sheekadana halkan ayay ku dhammaanaysaa. Asxaabta sharafta badan, sidaa ay idinla muuqataa qisadan? Fikirkiina noogu soo gudbay qaybta faallooyinka. Hana ilaabin inaad subscribe garaysaan kanaalka. Aad baad ugu mahadsantihiin daawashada fiidiyowgan.